Nasr Cabdullaahi Aweys waxaan dhigtaa iskuulka Sacaada gaar ahaan fasalka 6. Maanta waxaan idin soo jeedin doonaa fursadda cimriga. Bini'aadamka waxaa soo marta fursado badan, hadduusan ka faa'iidaysan aan dib u soo laaban. Fursadaha waxaa ugu weyn 10-ka dambe ee bisha Ramadaan, waxaana ku jira habeenka khayr badan 1000 bilood Laylatul Qadri. Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu dadaali jiray 10-ka dambe. Qofkii raba inuu ka faa'iidaysto fursadan kuna guuleysto ajarka maalmahan waa inuu ka fogaadaa waxyaabaha mashquulinaya una jeesto u dhawaanshaha Alle isagoo ku dayanaya Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo haddii 10-ka dambe marka la gaaro guntigiisa dhuuqsan jiray, habeenkiisa nooleyn jiray, ehelkiina waa uu toosin jiray. Sunnada Nabiga waxaa ka mid ah habeenadan habeenkii oo qiyaamul leyl la yimaado, qur'aan akhris ehelka oo arrintaas lagu toosiyo. Waxaa sidoo kale aad u wanaagsan i'tikaafka Alle in loo go'o. Nabiga waa uu i'tikaafi jiray 10-ka dambe ee Ramadaan. Waa saacado kooban, dembi dhaaf iyo naxariis iyo naarta oo laga xureeyo. Ka faa'iidaysi laga yaabee inaysan dib ku soo marin. Alle ha inaga wada dhigo kuwa naarta laga xureeyo.